salaamo saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan halkan waa janaalka dabagalka wararka waa 24 bisha sagaalaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho wadahadalladii farmaajo iyo roob leh oo mar kale fashilmay galmudug waxay cadaysay cidda fashilisay wadahadalka halka xafiiska farmaajana uu dhankiisa war ka soo saaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe qalliin ayuu ku galay dalka Jarmalka madaxweynaha Jabuuti waxa uu ku baaqay in xal loo helo khilaafka farmaajo iyo roob leh maxkamadda ICJ war cusub ay ka soo saartay kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya filla Soomaaliya waxay xiratay gaari aanay xabadu karin oo siisay Bashiir Goobe ay qaybta dambe ee warkeena aan ku eegi doono warbixin xiiso badan oo ku saabsan dalka dhaxdhaxaadka ka ahaa arrimaha caalamka muddo 500 sano ah intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka adeed ku cusubtahay janaalkan ku soo biro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatan aan idinku wareejiyo waryaheena oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatanna markaanu sii anbaqaadno qodobada warka janaalkana weerar ismiidaamin ahaa khasaarana ka dhashay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho qarax ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay meel ku dhow inta u dhaxaysa cisbitaalka Madiina iyo Villa Beedhaba ee magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal iyo ilo wareedyo amni weerarkan oo gabaldhici maanta dhacay ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka xarun ay degan yihiin saraakiil military oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen ilo wareedyo amni qaraxan ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray jaakadaha qarxa wararka hordhaca ee aanu helayna ayaana sheegaya ilaa iyo hadda khasaaraha kaliya ee la xaqiijiyay inuu yahay qofkii isqarxiyay oo goobta ku dhintay inkastoo la sheegay in jiraan khasaaro dhaawac badan afayeenka booliska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku jiray 24 bisha 9 2022 maalin Jimco ah waxa qof naftiisa haliga uu isku qarxiyay inta u dhaxaysa cisbitaalka Madiina iyo Villa Beedhaba mana jiraan wax khasaara oo geesta qaraxaas marka laga reebo qofkii naftiisa haliga ayuu yiri qaraxan ayaan imaanaya 2 toddobaad kadib markii dabagalka wararka ee shaaciyeen xogo ku saabsan digniin ka soo baxay xafiisyada amni hay'adaha ajaanibta ku leeyeen Muqdisho gaar ahaan xarunta Xalane iyo sirdoonka Soomaaliya oo ku saabsan in Muqdisho ay ka dhici karaan weeraro culus oo qaraxyo la xiriira sidoo kalena xogta ay bixiyeen khubarada amniga oo uu helay dabagalka ayaa sheegaya in weerarada qaraxyada ay laga cabsi qabo ee ka koobnaan karaan rag soo xirta jaakadaha qarxa gaadiid qaraxyo ay ku raran yihiin iyo qarax gaadiidka lagu xiro ee badan lagu dilo wadayaasha gawaarida si kastaba qaraxan galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sidoo kale ku soo beegmayaa xilli isla agagaarahaas dhawaan lagu beegsaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaana la sheegayaa inuu ka mid yahay xubnaha saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladda ee degan agagaarka inta u dhaxaysa isgooska Banaadir iyo cisbitaalka Madiina waana sanadkan gudihiisa markii labaad weerar ismiidaamin ah uu ka dhaco isla agagaarahaasi geesta kalena wadahadaladii farmaajo iyo rooble ayaa mar kale fashilmeen galmudugna waxa ay cadeysay cidda fashilisa wadahadalka halka xafiiska farmaajona uu war ka soo saaray arrinkaas sida aan ku helayno xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira wadahadaladii u dhaxeeyay farmaajo iyo rooble waxa gabi ahaanba la sheegay inuu fashilmay wadahadalkii lagu doonayay in xal rasmi ah looga gaaro khilaafka u dhaxeeya labadaasi mas'uul oo xalay rajo wanaagsan ay ka muujinayeen xubnaha guddiga dhexdhexaadinta fashilka wadahadalka ku yimid ayaa la sheegaya inay sabab u tahay qodobo ee guddigu ay rajo ka qabeen in labada dhinacba ay ka tanaasuli doonaan oo la sheegay in dhinac kamid ah dhinacyada wadahadalka u dhaxeeyay inay ka hor yimaadeen qodobadaas isla markaasna doodii ay ka keeneen wasiiru dowlaha madaxtooyada maamul goboleedka Galmudug Cumar Shido oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa shaaca ka qaaday sida ay ku fashilmeen wadahadaladii farmaajo iyo rooble waxa uu faahfaahiyay waxa dhaliyay fashilka
cumar waxa uu tilmaamay in wadahadalka socday maalmihii lasoo dhaafay in marmarka qaar uu soconayay 18 saac balse aysan jirin natiijo muuqata oo laga soo bandhigi karo wadaxaajoodkaas oo ay garwadeen ka ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor wasiiru dowlaha madaxtooyada galmudug ayaa intaas ku daray in dhanka ra'iisul wasaaraha uu biseel siyaasadeed uu ka muuqday balse caqabada ay kala kulmeen madaxtooyada Soomaaliya sida uu ku muujiyo qoraalkiisa oo banaanka soo dhigay halka uu marayo wadahadalka sidaad la wada socotaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo maalmahan ku howlanaa xaalinta khilaafka ka dhashay kiiska Igraan Tahliil oo sababay muran aad u ballaaran oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble dadaal badan uu bixiyay madaxweynaha galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xiliyada qaar ee shirarku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday fashil iyadoo ra'iisul wasaare Roble garabkiisa ee biseel badan halka dhinaca kalena lagala kulmay caqabad aad u weyn oo soo dadejisay in wadahadaladii socday ay istaagaan ayuu yiri Cumar Shido qodobada la isku mari waayo waxaa kamid ah xilka qaadista wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo Farmaajo ku adkaystay iyo in qof isaga u dhow loo magacaabo taliyaha nisa fashilkan ayaana noqonaya kii labaad oo muddo 2 toddobaad ku yimaad wadahadalka laga dhaxwaday Roble iyo Farmaajo waxaana muuqata in labada dhinac mid kamida uu ka jira xagooda fashil aad u xogan dhinaca kale xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay beeniyeen inay fashilmeen wadahadaladii u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo isbuucyadii dhawaa uu dhaxmaray khilaaf ballaaran oo saameyn ku yeeshay howlaha dowladda warka soo baxay marsi horeysa ayaa muujinaya inay guuleysteen dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble dadaalkan ayaa waxaa garwadeen ka ah gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor sida horeba loo baahiyay si kastaba xafiiska Farmaajo ayaa ku adkeysanaya in wadahadaladu ay weli sidooda yihiin isla markaasna aysan jirin fashil dhankooda ka yimid si kastaba arrimahan ayaa imaanaya xilli siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ra'iisul wasaare Roble uga digay khiyaano uu la damacsan yahay madaxweyne Farmaajo oo uu ku eedeeyay inuu rabo in isjijiidka uu socdo si ay fashil ugu imaadaan dadaaladii la xiriiray arrimaha doorashooyinka oo wada ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu qaliin ku galay dalka Jarmalka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la dhigay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka kadib markii laga saaray isbitaal kale oo ku yaala Imaaraadka Carabta sida uu ogaaday dabagalka wararka dabagalka ayaa xogag sheegaya in Axmed Madoobe uu 3 qaliin oo qabsinka ah uu ku galay isbitaal weyn oo ku yaala dalka Jarmalka oo kamid ah wadamada ugu tayada wanaagsan dhanka adeega caafimaadka xogta aanu helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in markii hore la qorsheynayay in lagu qalo isbitaal ku yaala dalka Imaaraadka Carabta balse dhaqaatiirta ay ku taliyeen in loo qaado Jarmalka sida aan xogta ku helnay dhaawac muddo dheer ka hor soo gaaray iyo xanuuno kale oo dhanka caloosha ayaa la sheegay in muddooyinkan uu aad u dareemayay madaxweyne Axmed Madoobe ila wareedyo ku dhow madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay inuusan ku jirin marxalad adag ee xaaladiisa aad u wanaagsan tahay kadib markii uu qaliin maray Axmed Madoobe ayaa dhowr jeer oo hore waxa lagu fuliyay qaliino u badnaa dhinaca barida ah oo uu ka qabo dhaawac hore waxaana la sheegayaa in haatan xaaladiisa caafimaad markii ay soo kafsato uu tagi doono dalka Kenya halka oo la sheegayo inuu kula kulmi doono madax ka tirsan dowladda Kenya iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed isaga iyo madaxweynaha Puntland Dani ayaana la sheegayaa in qorshahooda ugu weyn uu yahay in bisha October oo maalmo naga xigto si toos ah u gudagalaan doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee madaxweynaha dalka Jabuuti waxa uu ku baaqay in xal loo helo khilaafka Farmaajo iyo Roble madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo khudbad ka jeedinaya shirka golaha guud ee qaramada midoobe ayaa dul istaagay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalka Itoobiya ee khilaafka kala dhaxeeya dalka ay xadwadaaga yihiin ee Eritrea iyo qodobo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele mar uu ka hadlayay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble waxa uu soo jeediyay in ay xal ka
gaaraan waxyaabaha isku hayaan. Jabuuti waxay ka walwalsan tahay khilaafka madaxda sare ee dowladda iyadoo uu dalku ku jiro xaalad kala guura. Dareenkeena waa in xal loo helaa si aanan saameyn adag ugu yeelan jadwalka doorashooyinka, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlayay kulankii Qaramada Midoobay. Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay codkeeda ku biirisay dalalka, hay'adaha iyo ururada caalamiga ee ku baaqay in xal nabadeed lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Maxkamadda caalamiga ICJ-na waxa ay war cusub ka soo saartay kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay ku xaqiijisay inay ku dhawaaqi doonto xukunka kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya 12 Oktoobar 2022. Fadhi shaacsan oo maxkamadda leedahay ayaa ka dhici doona 9 galabnimo xarunta Hague, markaasi oo madaxweynaha maxkamadda garsoorka uu akhri doono go'aanka maxkamadda ayaana lagu yiri war saxaafadeed ee soo saarta maxkamadda. Iyadoo la eegayo xaaladda COVID-19 kaliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada dhinacyada ayaa joogi doona hoolka cadaaladda. Xubnaha diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo shacabka kale waxay awoodi doonaan inay akhrinta kala socdaan website-ka maxkamadda ayaana lagu yiri warkan. Dowladda Soomaaliya ayaa dacwadda badda gudbisay sanadkii 2014 xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay Kenya isku dayday inay wada xaajood ku qaadato qayb ka mid ah badeena. Villa Soomaaliyana waxa ay xiratay gaari aan waxbada karin oo ay hore u siisay Bashiir Goobe. ila wareedyo kala duwan oo ka tirsan hay'adaha ammaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dabagalka waxay u xaqiijiyeen in madaxtooyada Soomaaliya inay kanshashay gaari noocaan xabada karina oo hore loo siiyay General Bashiir Goobe. Gaarigan waxaa bixisay Villa Soomaaliya sanado ka hor, hase yeeshee toddobaadyo ka hor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyay loo diray warbixin sheegaysa in gaarigan uu gacan galay Al-Shabaab, waxaana gaarigan loo diiwaan geliyay inuu jiro dhinaca Al-Shabaab. Xogta la helay ayaa tilmaamaysa in shirkadda ay awood u leedahay inay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ku shaqeeyo system computer ah. Sidoo kalena waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in shirkadda ay awoodo in ay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtaasi dambe. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in sabab amni uu iskaga dhigay gaarigaasi Bashiir Goobe kadib markii la gudbiyo xogta gaariga, waxaana lagu wareejiyay gaari kale iyo ciidan military ah. Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaan aad u diidan magacaabista General Bashiir Goobe ee ah taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, waxaana la soo warinayaa inay saareen culeysyo badan oo dhanka ammaanka ah. Sida aan xogta ku helnay, Villa Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashiir Goobe inuu diiday magacaabista Roble uuna bedelkeeda qaato lacag, balse waa uu ku gacan seeray arrimahaasi. Wasiir Jamaalna waxa uu ka hadlay qorshe looga hor istaagi rabay tegitaankiisa Garowe. wasiirka qorsheynta xukuumadda xilgaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu haatan ku sugan yahay deegaanka uu ka soo jeeday ee Dhahar kadib markii uu ka degay garoonka magaalada Garowe shalay. Isagoo lagu soo dhaweeyay magaalada Dhahar ayuu wasiir Jamaal sheegay inaysan ahayn arrin sahlan inay ka soo degaan garoonka Garowe oo ay qolo isku dayeen inuusan Garowe tagin, arrintaasna ay go'aan ka qaadan doonaan. Waa sida uu hadalku dhigay. nooma sahlaneyn inaan Garowe nimaadno, qolo ayaa isku dayaysay inaan Garowe imaan oo inaga hor istaagaan, horeyna way noogu adkeed inaanu isku nimaadno. waad maqasheen qolyaha isku dayaya inaanu kulankeenu dhicin, ayuu yiri wasiirka oo dadweynaha soo dhaweeya kula hadlaya magaalada Dhahar. wuxuu sheegay in wixii dhacay ay ka tashan doonaan, isla markaasna uu Dhahar u tagay qeybaha kala duwan ee bulshada ayna wada hadal yeeshaan, wax qabadkii hore mid ka weynna uu wado ayna isku tashanayaan. Shalay ayay ahayd markii la sheegay in dad garoonka Garowe iyo ciidamo ku soo dhaweey lahaa wasiirka laga hor istaagay, laakiin mas'uuliyiinta Puntland ayaa sheegeen inaysan arrinkaasi jirin oo uu wasiirku xaalad abuur ahaan uu u faafiyay arrimahaasi. Si kastaba, wasiir Jamaal ayaa la sheegayaa in socdaalkiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira inuu daneynayo ka mid noqoshada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, isagoo haatan olole ka bilaabayo deegaanada uu ka soo jeedo.
ugu dambeyntiina daawadayaal waxaanu eegi doonaa warbixin ku saabsan dalka dhexdhexaadka ka ahaa arrimaha caalamka muddo 500 oo sano ah. inkastoo Switzerland ay tahay dal buuraley ah oo xiran, haddana juqraafiga ay ku leedahay bartamaha Yurub iyo dhexdhexaadnimadeeda waa arrinta siisay xasiloonida siyaasadeed ilaa ay ka mid noqoto wadamada ugu qanisan adduunka. qarniyo badan Switzerland waxay ahayd wadan dhexdhexaad ah, taas oo macnaheedu yahay inaysan ka qayb qaadan karin iska hor imaadka hubeysan haddii aan la weerarin. waxayna u adeegsan kartaa oo keliya ciidamadeeda isdifaacidda iyo amniga gudaha. waxa ay ku biirtay qaramada midoobay sanadkii 2002. waxaa ku hareeraysan midooda Yurub. waxa ay ka dhaxbaxday inay raadiso xiriir dhow oo ay la yeelato dariskeeda awoodda leh iyo ururada kale ee caalamiga ah dhinacna, iyadoo doorbideysa wada gooni u goosada oo dhinac kale ah. dadka reer Switzerland waxa ay si toos ah u gutaan doodahooda khuseeya qaabka loo xukumayo iyagoo adeegsada waxa loo yaqaano nidaamka dimuqraadiyadda tooska ah, taasi oo aan ka dhicin wadamada kale. halkaas oo muwaadiniinta loogu yeero goobaha codbixinta sanadkiiba dhowr jeer si ay ugu codeeyaan afti qaran ama gobol iyo sidoo kale hindisayaal caan ah. maxay tahay sheekada dhexdhexaadinta Switzerland? haddaba qoborada taariikhda ayaa sheegaya in Switzerland ay tahay dal taariikhda horyaalka difaaca dhexe ee loo sameeyo gobol aan ahayn awood boqortooyo. Switzerland waxaa la aasaasay sanadkii 1291, taasi oo xilligaasi ahayd isbahaysi la oran jiray Cantones oo kasoo horjeeda boqortooyadii Habsburgs, waxaana isbahaysiyadaasi uu la magac baxay isbahaysiga Switzerland. deegaanada kala duwan waxay ahaayeen inta badan dowlado madax banaan oo ay ku midoobeen difaacidda guud ee xorriyadda. Switzerland waxa ay ka badbaaday saameynta dowladaha kuwa ugu sareeya iyadoo la qasbin, inkastoo khilaaf gudaha uu si baan u saameeyay gaar ahaan wixii ka dambeeyay diwaaweyntii qarnigii 16aad. qarnigii dhexe dadka Switzerlandka aad bay uga fogaayeen dhexdhexaadnimada iyo nabadda. in ka badan 1 milyan oo calooshood u shaqaystayaal oo Switzerland u dhasheen ayaa qarniyo badan ku dagaalamayay ciidamo shisheeye. waxaa jiray ciidamo badan oo reer Switzerland ahaa oo xiliyadaasi ka dagaalamaya wadamo shisheeye. waxaa la yaab ah in askarta la amaahiyo dhammaan wadamadaasi oo si isku mid ahna ay ahayd inta labadaasi ugu horeysay loo qaado, taas oo ahayd dhexdhexaadnimada Switzerland. dhexdhexaadnimadeeda shuruucda caalamiga ee Switzerland waxa ay si cad ugu dhawaaqday in ay dhexdhexaad tahay sanadkii 1674. shirkii Vienna ee la qabtay sanadkii 1815 waxaa lagu aqoonsaday dhexdhexaadnimada Switzerland iyadoo lagu daray sharciga caalamiga. Switzerland waxay casriyeysay qaab dhismeedkeedii siyaasadeed markii la ansixiyay dastuurkii 1848 oo ay ku jireen mabaadi'da xorta ah sida xuquuqda shakhsiga, kala taga awoodda, nidaamka baarlamanka ee labada aqal ee lagu aasaasay kacaankii Faransiiska 1789 iyo dastuurka Mareykanka. wixii ka horeeyay 1848 colaada gudaha aad bay u badneed, laakiin Switzerland waxa ay ku noolaaneysay xasilooni gudaha ilaa bartamihii qarnigii 19aad. waxaa laga sameeyay in ka badan 3,000 oo degmo ama dowlad hoose oo ku yaala 16 maamul goboleed oo 6 kamid ah oo dhaqan ahaan loogu yeero kalabad kaatooniyada. dhexdhexaadnimada firfircoon markaanu eegno kadib dhamaadkii dagaalkii qaboobaa, dhexdhexaadnimadii Switzerland ayaa lumisay muhiimadeedii sababtoo ah shaqadeedii difaaca ayaa duugooway. intaa waxaa dheer, Switzerland waxay bilowday inay kaalin firfircoon oo sii kordheysa ku yeelato siyaasadda caalamiga ah, iyadoo sanado badan si weyn uga qayb qaadanaysay arrimaha bini'aadanimada iyo xafiisyada caalamiga ee diblomaasiyadda ee loo arkayay inay lid ku yihiin dhexdhexaadnimadeeda. xitaa inay ka mid noqoto qaramada midooba waxaa loo arkayay in ay la jaan qaadi karto dhexdhexaadnimadeeda, waxayna UN-ka ka mid noqotay sanadkii 2002. dowladda Switzerland waxay codsigeeda ku qortay inay dhexdhexaad ka ahaan doonto arrimahan oo dhan, xitaa haddii ay xubin ka tahay qaramada midoobay. ciidamada dalka Switzerland markaanu eegno, Switzerland wali waxay leedahay dood joogto ah oo ay ku saabsan waxa la jaan qaadaya dhexdhexaadnimada iyo waxaan ahayn. dhoofinta hubka tusaale ahaan waa il dakhli u ah oo muhiim u ah Switzerland, laakiin badanaa waxaa loo arkaa inay tahay mid xadgudub ku ah dhexdhexaadnimadeeda. laga soo bilaabo 1953 Swiss-ka waxa ay ka qayb gashay ergooyin nabadeed, laakiin militariga Switzerland ayaa laga yaabaa inaysan ka qayb qaadan dagaalka sababtoo ah waxay doorsadaan dhexdhexaadnimadooda.
su-aasha ah in loo ogolaan doono in ay ishubeeyaan si ay naftooda u difaacaan ayaa ahayd arrin taagneed ilaa aftidii 2001 kala duwanaanshaha dadka Swiiska inta badan aqoonsiga dhaqameedka ee ugu weyn Yurubta galbeed Jarmalka Faransiiska iyo Talyaaniga waxay ku kulmaan Switzerland haddaba mid kamid ah astaamaha lagu garto dalkan waa kala duwanaanshaha afafkaasi dastuurka Switzerland waxa uu aqoonsan yahay Jarmalka Faransiiska iyo Talyaaniga luqadaha rasmiga ah bilowgii qarnigii 20-meeyada in ka badan 3 meelood 5 meelood oo kamid ah tirada guud ee dadka ayaa ku hadlayay Jarmalka 5 meelood 1 meel waxay ahaayeen Faransiis qiyaastii 12% waa Talyaani in ka yar 1% waxa ay ku hadli jireen Roomaanka ku dhawaad 10 meelood meel dadka ayaa ku hadla luqadda aan rasmiga ahayn iyadoo dadka ka soo jeeda Croatia Portugiiska Serbia iyo Isbaanishkana ay ku jiraan qaybsanaanta qowmiyadeed ee dalka ayaana si weyn uga turjumaya kala qaybsanaanta luqadaha Switzerland waxay iska ilaalisay in ay kala daadato sida wadamada kale ee qayb kamid ah caalamka ka dhacday dalka Switzerland waxay nabad ku noolaanaysay muddo dheer waxayna ka badbaaday 2 dagaal oo adduunka ka dhacay qarnigii 20aad markii la soo saaray fikradda dhexdhexaadnimo ee hubeysan muwaadiniinta Switzerland waxay u codeeyaan arrimaha la isku hayo sida socdaalka Switzerland waxay ixtiraamaysay dariskeeda waxaana taaxigay kobac dhaqaale iyadoo Switzerland si fiican ula qabsatay kacaankii warshadaha iyo kobaca suuqyada maaliyadeed ee caalamka Switzerland waxay weligeeda tusaale u ahayd bulsho ka kooban qowmiyado kala duwan iyo afaf badan oo ah meel ay dadyooga kala duwan ku noolaan karaan isdhexgalka bulsho oo ay u mudoobi karaan guud ahaan waana waxa Swiiska ay ku faanaan sida ay ugu noolaadaan sidii unug isku xiran oo ay u ilaalin lahaayeen dhexdhexaadnimadooda ayayna damaanad qaadeen qeybaha kala duwan ee dadka Swiiskana waa inay bartaan wada shaqeynta dhexdooda aragtida Switzerland waxaa si weyn u qaabeeyay baahi dhaqaale iyo mid siyaasadeed taas oo ka dhigtay inay noqdaan kuwa waaqaca ku nool taxadar leh oo aqli badan isla markaasna aqbalay hal abuurka iyo isticmaalka kheyraadkooda guud ahaan daawadayaal wanaga intaa warki oo aad kala socoteen channelka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saara channelkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 channelkan ku baahino aragtidiina halka oo nagu reeba muuqaalka shirgareeya laakiin way noo muhiim daawadayaal wana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka channelka dabagalka wararka